sayidkay ku goodiyayaan way iska gadayaan waxba uma gelin ee xaq ay ugu gafaayaan abtirkii nin gaadha ma jiro oo la gaar dhigi dumarka la googoosanay wada garaafeen taqsiinta oo wada gaabanay gooska ku hayaan salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulantii dambe oo xiisanay waan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan kuna faraxsan tihiin soo laabashadeena anagana waanu ku faraxsannahay kusoo dhawaada barnaamij dab aha iyo abwaan madxi oo maanta garabkayga fadhiya insha Allah ta'ala inoona wada maaso ama gobay gun weyn oo run ahaantii xaqiiqada dhiigga iyo dhuuxa iyo lafaha xulay xaqiiqada dhabta ee nolosha maanta jirtana ka hadlaya marka abwaan soo dhawow waan dhawahay haddaad gobayga inoo bilowdo insha Allah ta'ala gobaygana maanta wuxuu ku saabsan yahay abwaan gobayga wuxuu ku saabsan yahay qooman dantiisa aqoon waayo ciwaanka uu wato ayaaba kullee laga garanayaa inuu wax culus yahay waayahay haddii aad inoo sii dayso si aan anigii iyo bulshada uga faa'iidaysana xaqiiqada jirtana aan uga garano giddigoodba waa lagu yaqaan gabadhaclayntaas weligoodba dulgaasiray daba gucleeyaan doqonkooda gaallaha u gala kama gudaayaan gobolayda unbay hayaan googa sanadaad gadh libaaxna way feedhayaan gebi ahaantooda gun inay yihiin ban marnaba gabal yar saarayn miyaan raggeyla ma ka dhalan baaba loo garay inkastoo haldoorgaasa baxay guul loogu deeqay gugiisii wataan ay dhammaan wada garwaaxaysan guntigiisii laga soo jiray galowda feedhiisa gobonnimadii u raadin jiray way ka geesmari sayidkay ku goodiyayaan way iska gadayaan waxba uma gelin ee xaq ay ugu gafaayaan abtirkii nin gaadha ma jiro oo la gaar dhigi dumarka la googoosanay wada garaafeen taqsiinta oo wada gaabanay gooska ku hayaan goolaaftankoodu nafruhu yaabu go'ayaan gun inay yihiin baan marnaba gabal yar saarayn war miyaan raggeyla ma ka dhalan baaba loo garay dad biyaashu maaweeliyaan oo isdaba guuri dad gabraarsigoodii ka dhigay geedi wadi goosh gelin qura dadaan gedhin karin oo wax garanayn gun inay yihiin baan marnaba gabal yar saarayn war miyaan raggeyla ma ka dhalan baaba loo garay xaajada midka goynaya loo gardhiganayo guryo waa inuu leeyihiin kuman gamaana hadba ginida kii loo guntay dabagalayaan qandaraasla gaar loo watay geedka soo gelin gambis buu ku sii deynayaa hawl gunaanadahe gardarrana wuxuu saarayaa kii ka geydhade hawsha waa musuq qamaysa gardarrana wuxuu saarayaa hawl ka geydhade gablan bay u qaabeynayaan caalin guul wada gun inay yihiin baan marnaba gabal yar saarayn war miyaan raggeyla ma ka dhalan baaba loo garay ninkii geeli uu guul bada suuq la wada geeyay dunida garaanaya ninka galab la weedaash ee cayb guddoonsada rag waa gaajo diriiraay isna gaalibkiisii jaga ku goobaay waxa uu gaafinaya duna ku sii gaar garan maayo oo taaca lagu soo gudbini waayo garta aan dhigtay tolkay hadalka gaarsiiye nin waliba wuxuu geysan karaa waa u gadmaayaan kafanaaba dhiiggaa guntama looga gigayaa gariyo iskaagaabinood garan cabaadkeeda gamaarida gacanta quraad kaga guraysaa ha yeeshee libaaxa ninkani gaalka la halmeel ga'da lama gudbaa aan ku dhaho oon ku garansiiye micid uu la gaadhaa ma laha oo waxgalaysaa weysada inuu kaa gubaado ooga gigaysaa ma gunaanada ayaa warkaan soo gun xidhayaa guba waan ka dheeray haddaan juuqda lay gabin gabal baan la tigsanahayo waan gabaabsiiyey maqrib baana igu soo gangemin oo la galayaa gugu waa bishiisii labaad galab khamiisaad caawana gashiin baa jiro waa habeen gobe jumca soo gelayo rabbaa loo gartamayaa guurta ay soo gaadhasiiyo koox weygeysya gafna ima roona cilmiga guudka iga buux salligaan gafrayo waxaa nabi ku geeraa sallallahu alayhi wasallam salligaan gafrayo waxaa nabi ku geeraa gacaraw xabiibkay mar rabo gaawo inuu dhahaa garhka hoos markuu geeyey ee magacu soo gaadho hambalyada inuu geeyo dhihi waa iska garataa alxamdulilah goorta hadduu malag soo gaadhay الله أكبر الحمد لله قرأت عضو ملك سوقا رون هانتي عجائب وضوي عن إنما عادي هين رون هانتي دتك سوقان يهمينتا يا دتك سوقان يهان اسكيالك رون هانتي فرقي هو دحية كليا لو قرانا يوا midhuhu waxaa weeye sida ay taargetka u abbaanayaan iyo sida ay xaqiiqada markaa jirta ay u analyze garanayaan u falanqaynayaan taas ayaa xaqiiqada ah wax lagu kala saari karo iyo erayada la adeegsanayo marka gobaygaasna insha Allahu ta'ala intaas ayuu ku egyahay intaan ku dambe oo xiisa iyo xamaasad gaar ah wata aynu isugu iman doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh